qaybta waxaynu ku baran doonaa indefinite integralska kuwa loo yaqaano integrationka aan qeexnay the set of all antiderivatives of f of x ururka markaasi lidka derivativeka f of x scholarly waxaa loogu yeedhaa amaba loo yaqaanaa indefinite integral of f of x. haddaba indefinite integral uu leeyahay functionka f of x is denoted by waxaa lagu asteeyaa symbolka integral of f of x dx weer halkaasoo calaamadan ay u taagan tahay the integral sign dx na ay u taagan tahay markaas ama denoted by lagu asteeyo variable of integration variableka markaas integrationka lagu sameynayo. tusaale d of x la yidhaahdo macnaheedu waxay tahay waxa integration lagu sameynaya waa variableka x. haddii dy la yidhaahdo saas lamid ah waxa integration lagu sameynaya waxay ka dhigan tahay waa y. qaybta koowaad ee indefinite integralka waxaan ku baran doonaa integration of power functions qaabka loo integrate gareeyo power functions. waa maxay power function waxaa loo yaqaanaa function kasta oo loo qori karo qaab ax oo lagu jibaaray markaasi n kasoo qaada f of x markaa inay kula mid tahay ax oo lagu jibaaray n muxuu noqonayaa integrationka f of x dx. integrationka f of x dx waxa uu la mid yahay halka f of x taala waxaa ku bedelan doontaa magaca functionka aad raf garanayso oo ah power function ax the power of n. integrationkiisu waxa uu noqonayaa markaas ax the power of n plus 1 oo loo qaybiyey n plus 1 jibaarka halkaas n ay tahay jibaarka eeduna ay tahay coefficientiga markaasi x. saas daraadeed marka la sameynayo integrationka keliya waxaa la sameyn doonaa jibaarka ayaa lagu dari doonaa hal kadibna isla jibaarkii hal lagu daray ayaa loo qaybin doonaa coefficientiga meesha yaalay oo ah e plus marka waxaa lagu dari doonaa some constant number c. example markaasi one tusaalaha koowaad find the indefinite integral of the following functions. soo saar markaasi indefinite integralka ay leeyihiin functionska soo socda. functionskani bilow ilaa dhammaad waxay yihiin dhammaantood ee power functionka inta badan waxaa lagu qaldaa exponential function hase haatee waxuu kaga duwan yahay sifada. exponential function marka laga hadlayo waxaa loo qoraa formka a the power of x macnaheedu waxay tahay exponential functionska waxay leeyihiin markaasi power ama jibaar variable ah iyo sidoo kale waxay leeyihiin base constant ayay leeyihiin exponential functionska halka kuwan la leeyahay power functionsku ay iyagu leeyihiin x the power of n halkaasoo n ay tahay markaas power constant sidoo kale basekooga x kuna waxa uu yahay variable ama doorsoomahaas noqon kara x y z numberku doon. haddaba dhammaan nambarada halka yaala basekoogu waxa uu yahay wada variable oo ah x jibaarkooguna waa constant number. soo saar haddaba derivative indefinite integralkoog saan soo saarna hadda waxaan ka bilaabi doonaa midka koowaad oo ah e waxaan haysanaa integrationka x dx x waxa jibaar oo ah waxa uu yahay oo u qarsoon hal. saas daraadeed integrationkeyga wuxuu noqon doonaa x oo lagu jibaaray hal oo lagu daray hal oo loo qaybiyey hal oo lagu daray hal kale midaasoo kula mida x oo lagu jibaaray hal oo loo geeyay hal waxay tahay laba oo loo qaybiyey markaasi hal oo loo geeyay hal laba kale plus markaasi some constant c waayahay b. integrationka markaa x square baa lagaa rabaa inaad soo saarto dx waxay noola mid yahay x the power of jibaarku waxa uu yahay laba labadii waxaa ku dari doonaa keliya hal laba loo geeyay hal oo loo qaybiyey itself laba loo geeyay hal laba oo loo geeyay hal waxay kula mid tahay saddex. saas daraadeed waa x oo lagu jibaaray saddex loona qaybiyey markaasi saddex plus some constant number c waxaan haysanaa integrationka 4x the power of 3 dx waxaan kula mid noqon doonaa markaa 4x the power of 3 waxaan u geeyi doonaa 1 isla 3 oo loo geeya 1 waan u qaybin doonaa kadib waxaan ku daraynaa some constant number c midaasoo inoola mid ah 4x oo lagu jibaaray 3 loo geeya hal waxay tahay 4 oo loo qaybiyey 3 loo geeya hashan hooseeyaha waa 4
afar iyo afar waa isku qaybsamayaan waa hal saas daraadeed waxaa ku lamid yahay x to the power of 4 plus some constant c markasta 3 plus 1 iyo 3 plus 1 n plus 1 iyo n plus 1 waa inay isku mid ahaadaan aan u gudubno markaasi su-aasha d su-aasha d waxaan haysanaa integrationka 6x oo lagu jibaaray 2 dx mid kale waxay noola mid yahay 6x oo lagu jibaaray labadii waxaan ku dari doonaa markaasi kow waa 2 loogii kow intan lafteeda ayaan u qaybin doonaa mar kale 2 loogii kow kale plus some constant number c mid kaasoo kula mid ah 6x oo lagu jibaaray 2 loogii hal waxay tahay 3 oo loo qaybiyay markaa 2 loogii hal kale midaasoo 3 plus some constant c midaasoo inoo lamid ah 6 iyo 3 waan isku qaybin karnaa wuxuu loo qaybiyay 3 waxay tahay markaasi 2 x oo lagu jibaaray 3 plus some constant c waxay tahay integrationka 6x square sidoo kale waxaan ka shaqayn karnaa su-aashii integration of constant number 5 dx waxa uu kula mid yahay integrationka 5 maadaamuu yahay constant number marka integrationkiisu waxau noqon doonaa 5 oo lagu daray numberka integration xaraf variableka integrationka lagu sameynayo oo ah x plus markaasi some constant c saas lamid hadduu 6 aan lahaa 6x plus c buu noqon lahaa aan u gudubno markaasi su-aasha f su-aasha f waxaan haysanaa functionka power functionka x to the power of minus 3 dx waxuu noola mid yahay x to the power of minus 3 markasta waxaan ku daraynaa jibaarka hal isaga laftiisa waan u qaybin doonaa plus some constant number c midaasoo inoola mid ah x oo lagu jibaaray minus 3 oo loo geeyay hal minus 3 loo geeyay hal macnihiisu waxay tahay hal oo laga jaray 3 saas daraadeed minus 3 oo loo geeyay hal hadda waxay tahay hal laga jaray 3 midaasoo ah minus 2 keliya oo loo qaybiyey qaybtan hoosena waa la mid minus 2 x-tan waxaa horgalow ah ama ay coefficient wadataa 1 iyo 2 isku qaybin karnaa haddaan doono minus 1/2 x oo lagu jibaaray markaasi minus 2 keliya sidoo kale su-aashan ugu dambeysay ee g waxaa la rabaa inaan soo saarno integration of x to the power of 3 over markaasi 2 dx saan soo saarnaa haddaba integrationka waxay noola mid yahay maadaama uu power function yahay waa x to the power of 3 oo la hoos dhigay 2 loona geeyay hal lana hoos dhigay 3 oo la hoos dhigay 2 loona geeyay markaasi hal haddaba maxay tahay 3 oo la hoos dhigay 2 loona geeyay hal kan hooseysu waxuu yahay hal intaa wixii ka dambeysay wiidan waa isku dhufan karnaa 3 oo lagu dhuftay 1 waa 3 oo loo geeyay 2 lagu dhuftay 1 waa 2 oo loo qaybiyay ugu dambeyntii 2 lagu dhuftay 1 2 3 lagu geeyay markaa waa 5 oo loo qaybiyay 2 saas daraadeed waxay kula mid plus some constant c waxay kula mid tahay x oo lagu jibaaray 5 oo la hoos dhigay 2 loona qaybiyay markaasi 5 oo la hoos dhigay 2 maadaama isku mid yihiin x waxaa coefficient u ah ama horgalow ah 1 waxaan u qaybin doonaa markaasi 5 oo la hoos dhigay 2 kan hooseysu waa 1
saas daraadeed waxaan qori karnaa kow oo loos dhigay kow calaamadan isku qaybinta waxaan u bedeli karnaa isku dhufash sareeyahan iyo hooseeyahan waa isdaba marin karnaa laba oo hoos dhigay markaasi shan sareeyaasha waan isku dhufan karnaa waa laba maadaama hal lagu dhufto laba yihiin hooseyaashan waan isku dhufan karnaa hal lagu dhufto shan shan saas daraadeed waxay kula mid tahay laba la hoos dhigay markaasi shan x lagu jibaaray shan oo la hoos dhigay laba balaas markaasi sub constants